السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دابا الملك ساجوكتان هبين ونكسن. waxaan rabaa inaan ka hadlo walaashii Fartuun Balbalaar oo kamid ah asxaabta Durdur Media kamid ahayd hadda laakiin YouTuber noqotay. waxaan ku faraxsanahay koo guush ay gaartay. labo Fartuun Balbalaar ayaa soo fadhiisatay YouTube-ka waxay tahday Xasan Top ayaa soo fadhiisay wiil aan walaalkayga ahayn. aniga xaasa leeyahay caruur leeyahay waxaan ahay nin weyn waxaan ahay nin aqoon leh waa dhaarana ilaahayna waa aqaana salaadna waa dugtaa waana soomaa waana salaada nin muslimna ahay inaan runta sheego qof been markuu sheegayna waa la ogyahay wax aan been aniga aan qof ugu samanayo ma leh wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa dhaar weligay ma dhaaran YouTube ina soo fadhiisto ma dhaaran waxaan rabaa daawadayaasha ani i taageero oo i og waxaan ahay oo Fartuun Balbalaar ka dhahday ninkaas walaalkayga ma ahana rabaa inaan xaqiijiyo wiilkaas waa Fartuun Balbalaar ka walaalkeed guriga wiilkaas uu ku nool yahay Fartuun Balbalaar ka 4 sano ka hor ay Muqdisho soo gashay Kismaayo ka imaatay ilma habreed waa walaalo walaalkeed iyada gurigeeda na geysay Fartuun waxaa xasuusta daawada riwaayadii oo xamaaliga uu ku jilayay Awees Cali Baafo dib u daabo Fartuun Balbalaar ka meesha ay riwaayadu ku jilaysay guriga ay ku jilaysay waa guriga walaalkeed wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa dhaaranaya ilaahay in laga baqaa fiican ma ahan waji cusub in dadka markasta la tuso warka aniga aan sheegayo dad annaga aan soo caan bixin ayaa jiro oo foto ka shaqeyn jiray footadii ka soo wadnay oo farsamadii iyo wixii xirfadooda soo bandhignay durdur ka shaqo bilaab meel kale aan lagu aqoonin dad idaacadaha Muqdisho ka shaqeyn jiray aan keenay Durdur Media magacan u yeelan dadkii hadda janaalay sameystay wayna soo caynayaan habeen iyo maalin xastooba kan micnaha ma ka xumi inay wax iga soo sheegaan laakiin ayaga maadaama ay aniga igu caasiyeen iyaga macalinkoodii iyo dadka ay soo saari doonaan ay arki doonaan talaabada ay qaado arinta Fartuun Balbalaar horta caasinimo ma ahan xumaan ma aha waa xaqiiq Fartuun Balbalaar waxay dhahday xastoob walaalkay way soo canbixi way soo garab qabtay waa ku soo canbixi waa ku soo garab qabtay wax qoranay ahaayeen ani laakiin sabab u noqday micnaheedna ma ahan wax walba ani waa ogaa oo arintaada ku saabsan laakiin ani waxaan ahay nin dadka ka maarma dadkoo dhan ma ka maarmi laakiin waxa ka wada qofka markuu ila shaqeeyo oo shaqadii ka dhamaatay ka maarmay waxay dhahday Fartuun Xasan Top igama maarmin maalin kasta ciwaankayga ku soo qoreen walaalkaygii ayaa ku soo qortay waa dhaaranaya qof markuu been sheegayo waa la ogyahay waxaan ku dhaartay waxa waaye wax oo qof aan ku dhaaran waay run aan ku dhaaranaya macnaha waxaan u dhaaranaa waxa waaye hadaa ani inaan iska soo fadhiisto saam ma aha kan waa aan dhaho dadkii ma xaqiiqsanayaan muslimna leeyahay qabriyana sugaayo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ku dhaartay ninkaas waa walaalkeed guriga oo wiilkaas oo maxaa la dhahaa guriga uu wiilku uu joogay waa gurigii 4 sano ka hor markii xamar imaatay ay joogtay okay guriga yaana geeyay filankii oo Awees Cali Baafo markii la jilayay waa filankii guriga lagu jilayay waay si fiican u fiiri meesha aan fadhino iyo meesha oo Awees Cali Baafo maxaa la dhahaa filanka aan ku jilayno waa guriga waay wuxuu ku yaalaa siigaal ku yaalaa dadka aad u yaqaanaan ma fahanti siigaal ku yaalaa dadka way yaqaanaan gurigaas Fartuun magaceed saxda waxa la dhahaa Shukri Abiyaal Colow macnaha ma ahan sharaf dil ma aha ma ahan ceeb dil ma aha ma ahan wax sumcadaadi ani inaan ku dilay maxaa sumcadaadi dilay way caayay dhahdo way aflagaaday inaan Fartuun Balbalaar ka walaalkeed aan soo wareystay ma aflagaade waa aflagaado noocee aflagaadada oo walaalka aan ku wareysanayo oo dhahay walaasha way horumartay ka waran walaashay way guuleysatay horumar u rajeena xirfadaada ka waran adduunyada qofka markii uu guuleysto caan ama celebrity uu noqdo waxa la wareystaa dadka eheladiisa qaraabadoodii iyo asxaabtooda la wareystaa waxay ka sheekayaan background-kooda waa wax adduunyada oo dhan caadi ka ah
haddaan cilmiga iyo garaadka iyo caqliga caadiga saliimka usoo laabano ma ahan si cari iyo inaan uhadlayo maaha waa si caadi aan uhadlaya marka xasan toob ma iga maarmina dhahdaa xasan waa iga maarmi weysay habeen iyo maalin ay haysaa okay durdur media si sharaf leh kuu sagootisay si sharaf leh aa ugu tagtay inaan ani studio soo fadhiisto haloo share garee haloo laa garee community aan ku share garee ma dhihi lahaa okay hadda haddii xitaa shaqaysatay oo meel kale aaday meel dheer ma aadinba waa meel ani saaxiibkeygii asxaabteygii leeda aadaba meel dheer miiga aadinba weli durdur lee joogtaa waxaad durdur ku joogtaa meesha adi hadda aaday janalkii iyo wixii iyo hooshii iyo shaqadaada aa wadatid durdur maka fogaba waa tiimkii ani aan soo saaray le weli la joogtaa alxamdulilah waa ku faraxsanaa weliba dad abaal laha la joogtaa oo bani aadan dadka ugu wanaagsan ah marka walaalkaagaa ahay sumcad dil iyo sharaf dil ma ka raadinayay Fartuun Balbalaarka walaalkeed muxuu ku dhahay caay ma aha backgroundka qofka in laga sheekeeyo adduunyada waa caadi xasan Mustafa Isxaaq hore waxaa lii oran jiray ani ciyaal barmuuda ah dadka aadka i yaqaan dhakuumiya i yaqaanaan waxaa telefoon ii soo diray hadda inta badan ciyaal barmuuda dad isla ahaa jirna war xasan dhakuumiya ii warnaa leedaha ma ka xanaaqi ma ka caroodo waa magac xilligaas la ii aqoon jiray laakiin hadda xasan toob dhakuumey waa magacii aan lii aqoon jiray haddaan ani magacii aan lii aqoon jiray aan diiday ka war okay Fartuun Balbalaar Fartuun Cumar ay dhahday Fartuun Cumar way baxsatay hadii ilaahay laga baqo wallaahi oo billaahi oo tallah waa la dhimanaa qabriyaa la tagaa runtaan ka hadlaa mana care ma aha wax kale ma aha yaa dagaalna ma aha ma rabi inay ku farxaan dadka aan damiirka lahayn dadka aan damiirka lahayn runtaan ka hadlaa dadka aan damiirka lahayn dadka aan damiirka lahayn mar waliba durdur media horumarkeedii waxa ay horumar ku sameysaba hagardaaminayo mar walba hagardaamo ku sameynayo durdur mar rabi dadkaas inay ku farxaan ani iyo Fartuun misdagaalsan micneed gantaala soo riday waxa soo riday horta aftahana noqotay hambalyo aad ugu farxsanaa warshadihii mid kamid ah warshadihii aan soo saaray inay guuleystaan alxamdulilah daawada si fiican ii daawo mana ahan dagaal cusub xasan toob iyo Balbalaar laakiin waa wax isku sheegid ardaygaagii hadduu khaldoomo waa la saxaa micnaha ani waa ka aamusi karaa laakiin haddaan ka aamuso waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u fahmaan dagaal waxaan rabaa marka si xaqiiq inaan sheego studio durdur media ee leedahay la dhisooya waxaa dhisooyo shire oo ah Fartuun Balbalaarka walaalkeed okay Fartuun waxay wacday Kismaayo wacday walaasheeda soo wacday shire waxay dhahday $4 la isii dheh ninkan walaashiis ma ii dheh Fartuun hayasin adi shalay ilaaha magac ku yeelay waxaa ogsoonahay dad badan oo magaalada dad caan cirka galay hoos u soo dhacay inay cir galaan hadan hoos soo dhacaan waxa sabab u ah shayga markuu kor u kaco isla weynaha haday gasho hoos u imaanaa waa ku barya walaashay isla weynaysa u galin okay walaalkaaga soo wareystay JK Allah igu dilo aan ku dhahay ya waa wallahi billahi tallah ku dhaaray maqaad zeytuuna joognay dayaxaash degdega joogay waxa joogtay Sameer gabar la dhahayo waxa joogay macalin JK joogay waxa joogay macaani joogay oo sheekayar official dhalinyaro kala joogtay Fartuun Balbalaarka ninka eedays walaalkayga ma aha nin beeno soo istaajiyay ilaaha joogo marqaati waxa ka ah dadkaas marqaati ka ah oo arkayay igu qabsatay walaalkayga way soo wareysanay haday dhileed xasano qof walaalkayga soo wareysatay ha soo gelin YouTube-ka oo si tartiib deganaan igu sheegay ixtiraam leh YouTube ma soo dhigi lahayn waxay dhahday yaa wareyso ku dhahay walaalkayga wariyaa yaa wareyso ku dhahay ma mudneen aniga macalinkayga saas ma ku sameeyay mana ka mudni yaa wareyso ku dhahay wariyaa ay dhahday hatta si aan xushmad ku jirin hadii la guuleysto oo cirka la galo oo la guuleysto micnaheed ma in dadkii ku soo saaray macalinkaaga aad isha ka gashid ma farta ka gelisid ma ani macallimiin badan wax soo bareen way soo waxaan social media gashay warniyo waa halawday ustaad waa u dajiyaa ustaad maya saas ma aha wallahi waxaan waa iska caadi waa iska entertainment waa arimo bulsho warnin aqoon-yahan ta warnin master ta maxay taa waan ikinaysa waxa dhaxtaynta meelaas waxaas waa caadi ustaad waa u dajiyaa haddii ani dhileed xasano walaalkayga waaye walaalkayga soo wareystay niyo ha soo gelin codsi wallahi billahi oo tallahi waa ka maarmay wallahi oo billahi oo tallahi ka maarmay
laakiin waxaan usoo geliyey videoga wuxuu ahaa hadda alxamdulillah wada shaqeynaan dhexmaroysaba master shire si fiican u fiiri shire wejigiisa iyo balbalaarkan si fiican u fiiri inay isku egyihiin meesha dhaartayna fiirso inaan runtaan ka hadlooyaa qof bani aadam been ku dhaarto waxay dhahdaa $4 lasoo siiyay waxaa raba xaqiiq inaan soo sheego mana aha dagaal labaad xasan toob iyo balbalaar oo qarxay laakiin waa istoosin fartuun waa la guuleystaa waa la caanbaxaa cid kasta way guuleysataa cid kasta way caanbaxdaa cid kasta janaal way samaysataa malab raran ayaan ahaa jiray dameer camal la igu shaqaysan jiray ayaan dhahday ma ka hadlin aniga macalinkeyga wax isoo baray haddii uu makaanika ani isoo baro oo 5 sano igu shaqaysanayo makaanikadu isoo baray 5 sano igu shaqaysto ma dhahaye ninaa igu shaqaysan jiray 5 sano macalinkeygu ahaa waxbarashaan ku jiray xilligaas inay dhahday ahayd fartuun shalay waxbarashaan ku jiray alxamdulilah 4 bil waa weli wax badan ma shaqayninba 4 bil ayaan waxbarasho ku jiray waa guuleystay caana noqday hadda maanta hadda maasha allah keligii wax samaystay hadalka inaan u dhigto ma ahayn malab rarana ahaa marka waxaan rabaa in dagaal aan loo fahmin isfahamsiis waa keliya waxbaan isfahansiinaynaa waana idin dhaartay waa idin sheegay shire studio durdur leedo hadda dhisoyaa cilad waxaa jirtay oo guriga anaga aan joogno ka jirtay oo farsamo ah uu noo xaliyay dhowr jeer waraysiye oo ka soo muuqday durdur master shire marka shire iyo fartuun waa ilma habreed hataa ma dhihin walaashi isku habaana ma dhihin runtuu sheegay shire waxaa laga soo wacay Kismaayo meel kasta laga soo wacay walaashiisoo ninkaan bahdiloya war maxaan ka bahdilaa war anigaasaa ku soo caanbixi maanta daa wadada maraayo balbalaarka aawiyaa lii dhahooyaa waa ku farxaa balbalaarka xaafaday joogtaa dhaha si sharaf lahaan u dhahaa adna markaa meel maraysa waxaa u dhaha war xasatoobkii aawaa lagu dhahaa war xasatoob xaafaduu jiraa leedahay laakiin haddii xasatoob aawa lagu dhaho xasatoob ma kasahay haddii ana balbalaarka aawa lii dhaho balbalaar waa tagtano marowno haddaan dhaha ka war qurux ma ahan ma qurux badna gantaala igu soo riday horta aftaana noqotay hambali waa kugu hambaleyna aftaannimadaada guuleyso gantaalka igu soo rida ma ahayn inaa ani igu soo barooweysid dadka kale inaa gantaalka isku ridi ahayd oo bash aa ku siisid ugu naxsatid marka walaashay waxaan ku sheegaa walaalkaa oo aan soo wareystay oo aansan wax khaldan sheegaynin oosan ku aflagaadeynin oosan sumcadda bahdileen oosan dhihin isku aabaana ha dhehaynin macnaha ma waxaa ka gubanaysaa shugri abyaalo colow fartuun balbalaar xasan mustaf isaaq khaalida ani magac weli ma bedeshin laakiin xasan toob hadda la ii kasaa laakiin waxaa la ii oran jiray xasan dhakuumey ciyaal barmooda aad ay kasaan balooniyaa dheeli jiray waa la ii kasaa ciyaal barmooda si fiicanaa la ii kasaa weli barmooda qaybta oo murusadaha uu dego barmooda weli qaybta murusadaha uu dego si fiicanaa la ii kasaa xaafadda barmooda aadaa la ii kasaa xasan dhakuumey ilaa hadda dhahaan xasan dhakuumey markay dhahaan hawraa waryaaq aan dhahaa macnaha magacii hore waaye wax hore markii lagugu yeero waa caadi waxay ahayd xaalad xilligaas jirtay ahayd haddii shugri abyaal colow magacaaga saddexan la sheegay oo fartuun balbalaar malagu dhaha la sheegay waa background qofka markuu celebrity noqdo ama uu caanbaxo caan uu noqdo magaciisa waa la falanqeeyaa bahdilna maaha laakiin bahdil waxaa la dhahaa ninkan waa tuugsan jiri ninkan tuugu ahaa jiri ninkan nuucaanu ahaa jiri ninkan saanu ahaa jiri marka la dhaho waaye waxa qaladka ah oo sumcad darada ah waxaan rabaa inaan macallin waxaan ku leeyahay isdeji waa guuleysatay 5 beriya 5 kun ku gaartay hambali waa meelaa saartay gabdhaha asaagaaga meelaa saartay fanaaniinta oo isjiijiidaya magaalada khatar dhahay meelaa saartay adaa ka caansan maanta youtube channelkaaga 5 beriyo 5 kun ku gaaray bravo 5 beri xitaa ma dhamo ka yarow 5 kun ku gaaray kor u dhaafay waan kuuga hambaleyna waa ku faraxsanahay marka ha u fahmin waraysigaas yar walaalka aan ka soo qaaday inaan kugu bahdilayo waan dhaartay qofna been ma ku dhaarto qofka markuu been sheega waa la kasaa marka istoosi waa ani ma aha dadkii kula shaqey jiray waa ka maarantay saan waaye inta waaye ma aha cid kastoo ani ila shaqeyn jirtay waa ka maarmaa ciddii ani iga tagto waa ka maarmaa waayo maskax caafimaad qabtaan leeyahay waxaan ahay nin aqoon-yahan amana isfaham lahayn nin master ah hal abuurkeyga mar walba waan badinaa mar walba wax cusub aan ka fekeraa mar walba daawadayaasha
wax qurux badanaa usoo diyaarinaa inaan faano marabi fartuun isdeji walaashii caadi iska dhig gabadheedi waxaa waaye dadka kaasoo waalayo ku dhahaayo ninkaan malab ahaanuu ku rara jiray ma qorxoono 4 bilood oo makaanika 4 bil oo makaanika aa ka shaqaysay bisha shanaad oo aad garaash furatay micnaheedii ma ahan in aad ka saraysid 4 bilood ee waxbarashadaada waa maasan tahay wax dagaala ma aha waxaan rabaa inaan u sheego dadka durdur media markasta horumarkeeda nacab inaan fariin u diro ani markasta waxaan ku fakaraa inaan sameeyo barnaamijyo cusub inaan sameeyo wax cusub oo dadka xiise geliya idinkan waxaa ku fikirteen wax cusub oo dadka xiise geliya ku fikir mar dambe ma rabi inaan kasoo hadlo dadka durdur media naceebka inaan kusoo celiyo ma rabi adiga youtuberaa tahay waa guuleysanaysaa maho ma shaqaysanaysido mala shaqay jirnoo durdur ma ka teginoo xaganin noo ka leexo faraha ka qaad ceeb waaye ma fahanta marka anii fartuun dagaal ma aha ee waa wax isku sheegid waa maasantaa fartuun fariinta aa iisoo dirtay ee youtube-ka iisoo maraysa way isoo gaartay laakiin markhaati waxaa ka ah jk iyo in walaalkayga maxaa usoo wareysatay dhahday jk iyo dad badan ayaa mas-uulka ah oo aan dhar xitaa u marayo oo meesha buuxay maqaayadda zaytuni qaybta VIP da xitaa sheekh colaad nin la yiraahdo oo joogo zaytuni joogo waaxda VIP da qaybta oo dumarkii ay fadhiistaan u joogo waay walaalkay usoo gelinaysaa dad badanaa joogay waxaan dhahay shalay markaad magac intaadan yeelan waa deganaana waxay u sheegi kartay xasano walaalkay soo wareystay ha soo gelinin bisa ugu filnay laakiin inaad kismaayo golweyn kulli aa wacdid oo lasoo waco ninkii oo la dhaho 4 dooro isii ninkaan dheh cadaabadaan u arkaa laakiin hadda waxaan filaa inay kuwaana qaado doonto caadina iska dhig mar kastana guul ayaan ku rajeynaa balbalaarka 5 beriya 5 kun ku samays ka badan haddii la gaaro 100 kun baad gaaraysaa anna waa kugu hambaleynayaa guushaada laakiin dadka ku dhahaya xasan toob waa saas kiyeen adoo ku bahdilo adoo saan ku yeelaya ha ka aqrisan waa maasantiin farsamadii iyo kaamirada liibaan Mustafa Isaaq liibaan Shooro